السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان ديكو سلام يا سلامتي إسلامك ميرو بتادو إذا كي سوغنتيهين سودا وادا واسكي تقبلوها كبلو فارح ولا الكيس معو كي كيرا بشير بالله مطارين حاسو قوري صاحب كيس قرشو دومسكيش كنو لو راو ناقر سيكو ساها جابك جلقتي مع الشورية بناوين شانتا بقى بقوري سودا وادا ميرو بتادو إذا كي سوغنتيهين سي شير قرية قارسية بيج كالتا إذيكو ماسن آذي وواسكي تقبلوها كبلو فارح ولا الكيس معو كي كيرا بشير بالله مطارين حاسو قوري صاحب كيس قرشو درسكيس كنو لاو راو ناقر سيكو ساها جابك جلقتي مع الشورية بناوين شانتا بقى بغوري آذيات وما سنتهين شرقرية قارسية بيج كالتو إذيكو ماسن آذيات لما قضبا ما انتا كهدليا او ان سيواناك سنو كهدليا ارتا دقنين ببحينيا بيج كدقبلو دادك كو عايتمو بغلال كون over 10,000 people over 20,000 people ayaa blogray marka dadka page-ka duqbilow ku caytamayo waxaan idin leeyahay caayda ka daaya hadaa caytantid anigu faa'iido badan ima haysid waa ku blogreynaya blog ba ku qabanaya waana ka tuuraya page-kaadiya duqbilow waa social media activist anigu gurigeyga iyo reerkeyga kuma xayisiisto page-kan business aniga leenahay kuma xayisiisto waxaan ku analyze garayaa siyaasadda Soomaaliya markaad page-kan timaadid ee wax ku qoraysid ama qoraal ugu timaadid waana qoraalka barta ku qoran ad comment gareyso weey aabaha male hooyada male abarta male eedada male dawladda Soomaaliya male waa page uu duqbalo furay weeye oo afkaartiisa uu ku soo gudbiyay weey aadiya ee siyaasadda Soomaaliya ku analyze garay marka waxa sameeyay marka aragtid qoraal barta ku qoran marka aragtid make sure qoraalka meesha ku qoran ina comment gareysid aniga furteenan saa ku guliyo blog ugu qabto wax weela ma aadiya marka dad hadda waxa arkay siyaasadaan hadda qoraayo dad horena hore ugu lugo'een blog bana kala daalay looma baahna qof aytum ilaa hadaadan waxa meesh ku qoraada ka helin sidii soo gatag hadii aad rabtina fikir ka dhibatida waxa meesh ku qoran fikirkiisa dhiibada duqbulow ma jixin jixo fartu galiya blog ku qabanaya waana ka haraysa followergiisa aadiya soo dhawaada ma sha Allah insha Allah hadii la yiraahdo laba arimood ba ka hadlay badda Soomaaliya iyo waxaan ka hadlayaa barhiiraale okay qoraal baan ana soo qoray laba jabsan dad badan baa waxaan arkay over 1000 people ba comment gareysay qaar baa wixii aan meesha ku soo qoray ka dhigay qabyaalad ka dhigay ama reer ka hadlayaadii qabiil kama hadlin reer kama hadlin waxaan ka hadlay shakhsi siyaasi oo aan siyaasad ka dareemay qaab wax u socdaan aan dareemayo yaa soo qoray dad badan oo caytamiyaan arka ma qabaayla Soomaaliya meesha ku cad boqolkiiba 80 dadka nooca waa blogray inta fikirkooda meesha ku reebtay ama ka duwanaato ama ha taageerto waan ku dhaafay over 700 qof oo comment gareysay sawirka barhiiraale dagaalowgii horeetay Soomaaliya magaranaysa Kismaayo hooyeen ku diri jiray hooyeen ku leen jiray yaan soo qoray aadiya dad baa qabiil u bedelay oo reer iyo cidi wax ka dhigeen page-ka duqbulow qabiil ma yaqaan aadiya haddii adigu qabiilkaab waxa u maleynayay dawladda Soomaaliya ama ra'iisul wasaare Xasan al-Khayri madaxweyne Maxamed Abdullaah Farmaajo inuu duqbilow qabiil ku taageero kuma taageerin wuxuu ku taageeray Soomaalinimo waxaana ku taageeri doonaa Soomaalinimo ku taageeri doonaa insha Allah taasi waa gali doonaa barhiiraale waa number 1 I mean number 2 number 1 badda Soomaaliya adina waxaan arkayaa dad badan oo Soomaaliyeed aad iyo aad magaranaysaa Soomaaliya aad iyo aad magaranaysaa niyad jabay qulubtoodii ay niyad jabtay qalbigoodii uu niyad jabay dareenkoodii uu niyad jabay go'aankay maxkamadda soo saartay ay 8 June 2020 yaa la dhageysanayaa dad baa waxay ka dhigeen fedhigti amin xukunkii u dambeeyay ee badanada lagu qaatay dad waxaan arkay mucaaradka waligoodba ku faraxsanaa in Soomaaliya badeeda qaadato Soomaaliya laga guuleysto aad u raadinayay oo already goos dambeed ka qoslayaan arkay kana dhigaya balanta cusub ee la soo saaray inuu xukunkii dhacay oo laga guuleystay Soomaaliya soo dhigayo dadkaas oo dhan markaan ka reeba dadka niyad jabay dadka mucaaradka ah ee hadalka u dhigaya in Soomaaliya laga guuleystay hadalka u dhigay inay dawladda Soomaaliya laaluush qaatay hadalka u dhigay inay Soomaaliya wada hadal ka gashay badda Soomaaliya
aad baan u cambaareynayaa oo waxaa kaa raba inaad ogaatid Soomaaliya baddeeda adaa iskale mucaarade Soomaaliya baddeeda adiga oo muxaafad ayaa iskale Soomaaliya baddeeda muwaadin walba oo Soomaaliyeed mas'uul baa ka saaran muxaafad iyo mucaarad binay ilaashadaan ay cadowga ka dhacsadaan wax uu farmaajo keligii uu mas'uul ka yahay maaha wax uu duqbilow mas'uul uu keligii ka yahay maaha wax uu ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu mas'uul ka yahay maaha muwaadin walba oo Soomaaliyeed mas'uuliyad baa ka saaran in uu ilaaliyo xuduudiisa inuu ilaaliyo area dhul haday noqoto bad iyo bari inuu ilaaliyo waajib baa ka saaran muwaadin walba oo Soomaali daraato aniga waxaan soo dhigay warqado maxkamaddu ay soo saartay September 12keedii oo ay ku shaacinayso 4 November inay dacwada dhageysigeeda ay dhici doonto warqadahaasi waxa ku qoraa detailka saacada iyo waqtiga iyo labada wadan sida loo kala dhageysan doono ma sha Allah sababtan warqada u soo dhigayna waxay ahayd in magaranaysaa maamulka naga Soomaaliyeed iyo looyarada iyo safiirka Belgium joogo fiqi in magaranaysaa ku adkeystaan 4 November inay maxkamadda dhageysigeeda dhacdo ma dhicin ما شاء الله ورقدي أي صوصار ICJ وكان نقطي بانتي جوان صوصار تري لحدة ما سديد جون 2020 يا محكمة اللي سنة أنا أقبله واحد كان من السنة هاي يا موادنين الصومالي واحد كان مسيحيين يعني حقوق أنالايز جرين دورا يا وزير كأمير رئيس الوزراء كحيين كدولك الصومالية وربحنتو صوصار إن شاء الله دولار هذا لقد بكل بعض وحكوا حق جندونا دلاجة لا يهو يوينكا دلاجة دلي أن عرور بدن عبياشود دلاجة هويا بدن ويل كذا جود كأدي دلاجة مقرنا يساي عرور بدن أو فر بدن أو آذو بدن أو صوماليد مقرنا يساي أجون توميي عرض عيرتي يا كهذا دونا إن شاء الله سياسة هذا كسرت بقى مش لينا قدب كواد وحنكور مرة يا بدر الصومالي مواد بدر الصومالي هذا إسكاله نلقى ما تقول سنين من أقول دريسان دونه أنت مواد الصوماليات ونولي هنا نيدني قب كنك هوس هذه بيس مواد وربحين هذا الله صاري اللي يتضبط سداد بيش اللي حال لبدا كون يلا باتنكا ان ما هو حكم ودعي وربحين اي سو صارتي محكمته اي leedahay waa kama dambeys كي si walba iyo wax walba ay dib ula soo noqoto ay soo saarto oo tiraada dib ha laygu dhig aan loo dhigi doorin oo cidii barta ka maqnaato oo aan dacwada ka soo qayb galin oo dheydka maxkamadda la qabtaan ka soo qayb galin waxa weeye guilty bay noqonaysaa waxa loo xukmin doonaa qolada marka ayada joogto ee xaadirka ee barta ka soo qayb gashay maxkamadda yaa loo xukmin doonaa insha Allah duleero okay nimanka mucaaradka iyo dumarka mucaaradka mar walba dawladda diido mar walba tanabada diido mar walba qabyaalada iyo qabiilka ku faano waxa weeye ogsoonaada ciidan iyo badan iyo dhulkan iyo Soomaaliya idinka iskale ma hina umada marin habaabisan ma aha inaad tiraahdaan 3 October baa waxa yimid mahdi guuleed iyo xeerlaaliyaha Soomaaliya yimid laaluush bay qaateen dhaqaalay qaateen magaraysa wada hadal balagalay waxyaabaha umada ku jahwareerisaan macna badan keenin meesha farmaajo haduu taga khayrana uu tago oo madaxweyne kale u yimaado kaasa dacwada badda barta ka sii wadi doona insha Allah haduu ilaahay haddii ay ku soo aado waqtiyada doorashada ama waqtiyada magaraysa xasaasi ku soo aado Soomaaliya xaq bay u leedahay inay tiraahdo dib hal ay ku dhigo insha Allah haduu ilaahay oo waqtiga ku haboon iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ku haboon ay dacwada sii wadi karaan laakiin midog soonaada wax xukun oo hadda dhacay oo Soomaaliya lagu guuleystay male Soomaaliya waxay ogolaatay oo mar walba ku qasbantahay inay ogolaato xukunka ay soo saarta maxkamadda caalamiga adduunka iyo balanta ay maxkamadda caalamiga adduunka soo saarto waa ku qasbantahay sababtoo dacwadan badda waxa geeyay Kenya maaha ogsoonaada dacwada waxa badda geeyay oo faylkan mooshinkan dacwada ku socota furtay waa Soomaaliya waxa weeye ayada dacwadan furtay waxay dacweynaysaa Kenya oo sheegatay badda Soomaaliya Kenya maadaama ay defense ka tahay oo dadkii isdifaacayay ee dacwada lagu soo ogay ay tahay mar walbeeto waxa weeye fursad bay helaysaa oo 3 2 jeer hal jeer waxay noqoto
waxay macnaha tusaale haddaan kugu soo qaato maxkamadaha caadiga wadamadan aan joogno Soomaaliya ma garan karaado koor marba kaado Yurub iyo Mareykan haday noqoto haddii aniga aan maxkamad tago oo dacwo geysto oo anigu aan diyaarahay oo aan rabo inaan dacweeyo qof dambi iga galay ama ma garanaysaay xaalad kale oo jirta rabo inaan ku dacweeyo maxkamaddu falashii iyo dacwadii way iga qabanaysaa waxa weeye case-kayga ba review lagu sameeynaya maxkamaddii waxay sameynaysaa warqad bay waxay u diraysaa qofkii dacwadda lagu soo oogay si looga garbaxo qofkii markay dacwadii lagu soo oogay ee maxkamaddii ay baxday warqadda u geyso qofkii waxa waajibka inuu maxkamadda yimaado ama bilooyin ama saacado ama bilooyin ama wiigag inuu intuu soo waco yiraahdo warqadii maxkamadda waan helay maxkamadda waan u hogaansanahay maxkamadda waxa weeye amarkeeda waan qaadanayaa laakiin cilad bay haysato dhibkaas ay haysto waqtiga aad ii qabateen maxkamadda inaan ku imaado aad ugu tala gasheen kuma imaan karo waxaan codsanayaa in naxariis la ii baaro oo dib la iigu dhigo waqtiga iyo waqtigaas baan firaaqo heli karaa haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah maxkamadda waxay sameynaysaa dib ugu noqonaysaa waxay raadinaysaa iskaljar ayadu ay leedahay macnaha waqti maxkamaddu ayadu ay caymisay yaa qofka loo qabanay looma qabanayo qofka waqtiga uu sheegtay lama siirin okay qofkii waxa laga yaabaa inuu wadanka ka maqan yahay dhaqaale kale iyo dhibaato kale sida hadda ka yeeshanayso inay haysato uu dhaho ka aniga muddadaasaan u baahanahay sanadka ama muddada 6 bilood inaad isiisaan fursad si aan maxkamaddan isugu soo diyaariyo maxkamadda way dhageysan uma raacayso wixii uu muwaadinka la dacweeyay ama dawladda la dacmeeyay ama kambaniga la dacweeyay wixii waqtigii uu qabsaday looma raacay laakiin maxkamadda si ay dhaxdhaxaad cadaali mar walba tu noqoto qofkan way dhageysatay cabashadiisii markay cabashadiisii dhageysatay kadib iyo waxa leedahay taadi kuma raacin laakiin meel midale oo qofkan ku dacweeyana uu go'aaminin adiguna aadan go'aaminin annagoo maxkamadda nolol soo dacweeday ayaa go'aamina waqtiga iyo waqtigaasi kama soo dibdhici kartid sidii ba hadda socoto oo dacwada badda Soomaaliya iyo Kenya socoto Kenya laakiin mar hore codsatay waa loo fududeeyay yaas waa ku qasbanina ogolaano mar labaad ba hadda maxkamadda markay soo dhowdahay oo bil kaarsatay iyo hadda mooshin kala gudbisatay waxay tir dib hal lagu dhigo very good waxoogo yar rajada naga yara hoos noo noqonayso laakiin rajada badda Soomaaliya inaan karquusano oo aan niyaddanada ka dhaadhicin in laga guusto in naga guuleystay waa xaraan weey good Kenya mar labaad bay soo noqotay waxay tir cudurdaar kale dhibkaas haysto rafaadkan bay haysto xaaladan bay haysto muddo sanada kadib baan diyaar u noqon karaa maxkamadda good maxkamadda dib bay isugu noqotay isku celcelis bay sameysay isku celiya sanad bay dalbatay waxyaabo badan oo magaranaysaa idinkaada ogaan kar annagana ogaan kar yay u gudbisay magaranaysaa qoladan maxkamadda gudbisay Kenya looyaradeeda gudbeen annaga ma ogaan karno waxa ogaan kar waa looyarada Soomaaliya iyo magaranaysaa looyarada Kenya iyo ragga maxkamadda ka shaqeeya very good waxa dhacday marka in maxkamaddii markay dib isugu noqotay inay siisay 6 bilood balaas 2 bilood waxay siisay 8 bilood bishii 8 bilood ba maxkamadda dib loo dhigay 8 bilood hadda kadib haddii Ilaahay yiraahdo yay maxkamadda waxay tiri waa kama dambeys halkii sanana kuma sinin kuma ogolaan hal 1 year inaan idin siiyo laakiin 8 bilood bay siiyay maalinta kama soo dibdhici kartaan waqtiga waa inaad ku timaadaan qolo walba ina waqtiga timaadaadiyaan okay annagu waxoogo yar waan u yar jeeftaa wax badan ma waxoogo yar oo aan farabadnayn umada Soomaaliyeed iyo dadkan dacwadanada ku jiro waxoogo yar waxa weeye way ku yar jeeftaa oo ah in 2 jeer horena dib loo dhigay markii haddana ilaa iyo bisha 8 bilood kala dib loo dhigay yes waxyaabo badan bas bedeli karo waxyaabo fara badan ba dhinaca Soomaaliya iska bedeli karo waxyaabo fara badan ba dhinaca magaranaysa Kenya iska bedeli karo waxa weeye Kenya waxa ay rabto inay waqtiga dheeraysato si waxyaabo badan isu bedelaan annagu haddaan nahay Soomaalida ma rabno inuu waqtiga dheeraado waxaan rabnaa inuu waqtiga maadaama hadda wax walba isugu kentoosan yihiin maadaama hadda wax walba isugu hagaagsan yihiin inaan hadda magaranaysaa bal dhinaca loo dhacayo aan ogaano si diyaar garow labaad annaga u galnaadiyaan Kenya waxay rabtaa si ay waxaan u jiido diyaar garow fiican ay u gasho oo ma sha Allah uga guuleysan la Soomaaliya aadiyad marka waxoogo yar shacabka Soomaaliyeed dawladda iyo nimanka siyaasiyiinta buu karo laakiin shacabka Soomaaliyeed aniga kamid ahay aan codkooda ay mar walbeeto waxoogo yar waa niyad jabnay
waxaan rajeynayay inay dhacdo September inay dhacdo waa dhici weysay laba bilood ba dib loo dhigay hamigana kor bu jiray waan isu diyaarinaynay dad badan oo Soomaaliyeed waxay islahaayeen waan guuleysan doonaa dad badan oo Soomaaliyeed waxay islahaayeen maxkamadda waqtigeeda ku dhici doontaa dad badan oo Soomaaliyeed waxay islahaayeen insha Allah badda Soomaaliya waa soo noqon doontaa dad badan oo Soomaaliyeed hamigooda waa saray maanta marka darana go'aankan soo baxay ee la yiri 8 bilood hadda kadib baan dib u dhignay maxkamadda la yiri yaa salayar baan darana niyadanadu waa xogo yar dhimatay niyadanadu xogo yar garayso yar shuuqday inkastoo 8 bilood ninku Ilaahay daayo nafsada uu ku simaysa waqti dheer aysan ahayn oo muddo yar oo kooban ay tahay berrinta la gaari doono hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah haddana dadkii Soomaaliyeed niyadii xogo runta laga hadlaya niyadii xogo waa naga yar jabtay وحقو ير وحاوي درين با إنه يرجرو وحقو ير وحاوي وحن دريمنا إن مجرد ساي كي سيد دون واحد دون سمينيسو وحقو ير وحن دريمنا إن وقتك حضرنا نقول دير يبقى ميننا حضرنا وحن دريمنا حالا بدن درين كتتك كارليا بركاري أنا قلت درين كتتك كارليا oo مجرد ساي نتي هذا صباحي go'aanka hadda maxkamadda ka soo baxay madaxda Soomaaliya noo sheegeen inuu niyad jab nagu yara keenaadiyad anigu shakhsiyan waxa ay mucaaradka sheegayaan ma aaminsan tahay may shacabka Soomaaliyeed wanaag jacayl dawladnimada jacayl inay aaminaan waajiba maya sababta wax xukun oo dhacay oo la yiri Kenya guuleysatay ama maxkamadda waa dismiss ma jirto maxkamadda dib loo dhigay waqtigii dhageysiga iyo waqtiga la isu imaan lahaa dib loo dhigay kaliya marka intaana dhiman ninku Ilaahay daayay intanada hadana dhiman oo Ilaahay nagaarsiya bishii 6 2020ka waxa weeye waan arkayna insha Allah okay dareenka shacabka hadda ka hadlayna anigu system ba taageerayay dawlad ba taageerayay institution ba taageerayay Soomaalnimo taageerayay ma sha Allah nabadiyo nolol waxa weeye waa halku dhaga dawladda Soomaaliyeed madaxweynaha xisbiga uu ka tirsan tayaa la yiraahdaa رئيس الوزراء ما قرأ كرحسب وكتر سياهاي من نبضين رول بلو بحضور عاديات لكن واحد أنا جاي موادين بدنا الصوماليين تاجرين وحاوي إن institution كصوماليات واسمه إن system كصوماليات الدولة لماذا إنه سنبربرين إنه صومالي على كذي الصومالي great صوماليا إنه يهاجكتو أو الصومالي النقطة مجرد ساية سيدي هنجرتي برسماتكي يدبقوا سو نقطة أما الصومالي أي وحلقة يبسطه دولة عالم كردستان الدولة هيستو النظام كيستو كلا تنبيت إن النقطة أنا نقول تاجر سناديا تاسي مركا إن شاء الله الدولة ياسني الجبير بينو كنيسة بيش اللحاد وكل جوروي بيش اللحاد 2020 وكل جوروي وفرماجو كان بينجريساني هادو دورشود رابينو دبقوا سو نقطة غير وكان بينجريساني هادو رابينو دورشود دبقوا سو نقطة وزير هذا وحاوي وحي هذا يعني شحات سياسات بهذين وحياة شرنا وين أنا أنالايز قرينا وياس because every وزير هذا الدولة ده كترسن لح سداد بر هذا كتب دولة ده يعني مسرش كوا جواب شوي وقت يسوار ما سياسي والبا أما وزير هذا أما قاسم هذا وحسيق ليا شكانسي أو حسي شكانسي ليا سياسيين تكلا الرجال يعني مدحوينيال كانوا قضاء دولة الصومالي وحاوي وقت بدن وعالم كلهم بيقدرتها مريكان بهذا السعادة نتاجنا كسعتها ترى من نفس الكيسو مدحويني دولة الصومالية مدحويني دولة مريكان ككودا right now حفيز كنتو كشقيو انتو كامبين كم قيها وكامبين جريسانا يوم مريكان وريجيو وحاب بدن انتو كامبين كدرو الشغلة كامبين كدرو ويرتها الشغلة حفيز كنتو هايو وجست وح أو حالات دقدقة يا حالات عروس كلية مجرس هاي هذا الشغل وجوجا ساعدا وقت كان هذا الله الليو مدحوينها دولة مريكا ترامب wuxuu ka campaign gareysanayaa gobolka Texas magaaladiisa Dallas وهذا right now saacadana idin la hadlayo ka dagay sababtu xagga uga dagayna waxa weeye waa shaxaad siyaasadeed iyo sidii uu ku soo noqon lahaa 2020ga iyo hadda hawsheeda ku jira marka annagu markaan nahay Soomaali waan ka sii xaq jirnaa wadan dagaal sokeeye ka soo baxay wadan qabiile wadan baarlamaanka la isku doorto xaaladiisu adag tahay weeyaan dalka Soomaaliya 8 bilood hadda kadib وحاول النوال بهمجة وهذا هاي وزير كاربها الدبدة همجة وهاي ما هين دونه المدحونا همجة وهذا وهاي إنه كقولش تمح كمدن إن شاء الله وهين دورة وسام السلكة رئيس الوزراء همجة ما هين دونه ياس وهين دونه لكن سياسة النوال بيته إنه دبوا صنعه تصالح شيخ شريف شيخ أحمد مدحوني صومالي حاس الشيخ محمود مدحوني صومالي ما أنت وحو وردية he's running إنه هذا مرة بعد باور كي حكم قبسه
soomaaliyana wuxuu ka gaaray shaqadii ugu sarreysay oo uu qof Soomaali u qabto oo madaxweynihii dalka oo dhan buu noqday oo isaga mas'uul ka noqdaadiyay marka siyaasaddu inuu qofka ka dhinto moogiye madaxtinimada arko inuu ka dhinto oo naftu ka baxdo oo laaso moogiye waxa weeye marba qofka hadduu siyaasi galo way adagtahay soo baxo mar walba wuxuu raadinayaa meesha uu joogo si power kale lacag kale tii howlo kale to magaraysa ay ogoshi badan leedahay marka 2020 bisha June markii la gaaro anigu hamiga inaan hayn doono Ilaahay baa og qeyraynu hamigan hayn doono Ilaahay baa og adigu inaad hamiga hayn doontid Ilaahay baa og sababtoo nin walba wuxuu ku ordi doonaa how you get the power magaraysa money or meeshu siyaasadda ka soo gala for example kale tusaale ninka hadda la oranayay sambaloshe soo noqday sirdoonka dhan ee Soomaaliya ninka ugu sareeyay siyaasadii meel fiican buu ka gaaray way ka tuureen haddana waad aragteen oo macal qabiil buu ku kambigareynayay reer hebel inuu yaadiyaad oo si uu ugu soo noqdo saaxadda marna Soomaaliland buu aqoonsiinaya marna wuxuu leeyahay beesha waxaan ka dhashay lafweynta ka dhashay mar wuxuu leeyahay Muqdisho saan noqoto waxaas oo dhan wuxuu sameeyay waxa weeye odayga reerka ku arko qolada kale siyaasadda ha ku taageerto bal si uu hadda lugta ula sugisho marka June markii la gaaray insha Allah dollar ama analyst June 2020 markii la gaaro waxa weeye madaxweynaha campaign buu galaya ra'iisul wasaaraha campaign gooni buu galaya hope inay isla soo noqon lahaayeen oo teamkan oo sidiis inta dar doorasho galaan ee dib u soo noqdaan aad baan u jeclaan lahaa waana Mareykanna way sameeyaan wadamada caalamka way sameeyaan laakiin dhaqanka aan Soomaalida ka baranay last 20 years aan arkayna ama TV-da ka daawanayna wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha say isula shaqeynayaan oo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare isugu yihiin markay doorashada baarlamaaniga ay timaado ra'iisul wasaarihina waa madaxweyne candidate madaxweynihina waa madaxweyne inuu dib u soo noqdo labadoodii hal office ka wada shaqeynayay bosks ku ahaa oo wada ordiyada arkaysa hal iyo labana maaha Sheekh Shariif iyo Cabdiwali Gaas markhaati baan keen حسق محمود يا عمر عبد الرشيد برخاتي من كان مركي إلى هاي إنه كدوا ورجالنا خير يا فرماج هذه مركا إن شاء الله أنا قاعد بسيط عيرته يقول جرتو إن 2020 جون وقفوا البيتو وده وقفوا البو وده لمي سياسات بالرئاسية كان بمجالي أرونكر وحن صومالي بيوطالله وصومالي هو شيء لقرأوا ونو يصير هذا وحيابا كي كوردس ويصير هذا خير هذا كامبين مدحونون ورده وده أوكي مركا هذا صون قالوا يعني لمي هذا وحبا أتيش بدن ينسين نقالب بدن ينسين because هذا كردت كذا بهلي you're right because everybody is running looking for political position برادنا nobody شعبكي قبيلة وكل عرايان حافظة لوكل ورده قفوا البيت وحوي حكم كدل كسيل وقبتال ورادنا so nobody أو كرنت سينايو whoever سوء اللي يبدأ من محكمة ده وقت قليو وحاول يودي بالناس حتى الدولة دي جرتها سيستم كي مركز لي أنا بدي نقول لها حتى هدي أي وقت بدن قليان أو اللي قول استكرنت كم هلايان أو حكرنت مركز وحياها صدم بجرين لا الله يسقرله لكن مواطنين الصوماليين أقوي هندا الصوماليين وضبلوا كم إن شاء الله دولار بدي إنها كوهن أنا من يتجبن شعبك الصوماليين اللي يتجبنا وحلايها النية يتجبنا أنا قاعد إسكال بدن سياسي وحبين نجمجلن مدح كلنا وحبين نجمجل أنا وحنا جلوا بدن دول كان عركان عيدان على كان ويان هذه وأنا إنها كنا هني راعينا قولونكم معارض كأوريدي بهذا إذا يتجبيا ربان هذه مدحونا وحكوا عصر الله إنه بعشان وكم من تدو حتى بوجة تاريخيات وقول دونا إنه وجرتين والنقطين نيك بدأ السعودية رئيس الوزراء نسيته كل التلاية أوكي تاس بدأ كجب حياة أنا من يتجبن كمان إني يتجبها إن شاء الله دولار دول كيجا يعرض هذا يبدأ كم يتجبها وحكى الله يا برهير عليه دلاجة وين هو يوين كصوماليات دلي أقول تيمي مجرد ساعة عرور بدن يهويين بدن كلكحيي عرور بدن أبياشود كلكحيي مكان قرال بس أغري شليت حالته تبدأ وحلين تقبلوا بيتك من العجب صدي especially نمن كان ريدي نمريحان كان لا والبيت كان يديكم مليدين دولة هدان تاجران عنيكم مريحان مي put in your mind نيدا دقيلي مدا يدا مجرسة قبيل سوبر الحكومة الشيء وحوانا مرة مجرسة دنا because لو بقولوا قف بيسوعد ما حد دعي واحد دعي ولا قال ليا سيدا يتهين ولا شيء واحد قنجة كجور محا كود كجور قنجة أجور أنا ودوري مينه ليست كود كجور قنجة أجور مرنا ما سود وين مينه أديت طب أنا وحاركي بيت كيجا قبيل كديجا أما رير إذا أما الدولة ده نري عن تاجير أيو إن العك الشيء سو عن قبيل أوشقية أما رير أوشقية كلت وراني ونشقي استانا هاي وتراجله فرماجنا $1 يمسيه خيرنا $1 يمسيه يعني 1 penny
oo dhaqaale ah ima soo geliyaan ama mishaarkooda dowladoodana kama tirsan laakiin waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo taageero dowladnimada taageerana qabiilkana nacab cidda iyo reerkana aad uga cararana khayra iyo farmaajo waxa ku taageeraya waa wanaaga iyo fiicnaanta ay hayeen ay sameeyeen ba ku taageeray khayra iyo farmaajo anoo duqbilo waxaan ku taageeray hooyooyinka Soomaaliyeed ee caruurtooda nool adigu qabiil ba ku wado ma garanaysaa reer ba ku wado cid ba ku wado hooyooyinka Soomaaliyeed ee caruurtooda nool oo anoo nool hooyaday kale ta ka soo qaad aniga hooyaday curad oo wiilkeedii ahay oo 20 jir ah yar hooyaday oo gaajaysan arkay ama xero qaxooti joogto ama Soomaaliya meel kamid ah joogto nin rag bulaaga dhigay waxa isku dayay waas biimeynayaan waxa la shul ama shal go outside tag bax meeshan naata ka tag si hooyada iyo aabaha aad ilinta uga tirtid si hooyada gaajada ay habeen walba ku seexanayso aad habeen cunto u siiso maxaa sameynaa nin rag waa tahriibaya maxaa sameynaa nin rag wadamada waxaan u cararayaa dariska wadamo kale aan u cararaya wiilashii marka sida ku baxay ee aanan u soo bixin iskorisnimo kale iyo dhibaato kale u soo bixin ee wadamada kala qabsadeen ee hooyadii gaajaysneed wiilka ka soo cararay ma garanaysaa nolosha adduunyada meesha ku nooleedna ka sabarto ee ku gaajaysan wiilkii ay dhashay curadkeedii ahaa ay yiri hooyaday baan gaajo bixinaya waan tahriibaya waa shaqo aadaya meel qaalala iyo wadan waxyaalaan wax ka soo qabsanaya yirina xabsi dalaqir ee hooyadii oo nool oo waxay cunto haysanin oo Soomaaliya meel kamid ah fadhido ma feel garanayso because barhiira li Axmedo ku cadadig yaa ma garanaysaa wiilkii inta wadamo shay qabsadeen xabsi geliyeen hooyadii waxay cuntay laadahay iska daa wiilkan hadii la yiraahdo damaanad waxa lagu soo doonayaa $500 ama $100 ba lagu ma haysato soo wiilkeedii oo nool oo nafsada ku jirto oo waliba taar ka soo hadlay ama telefoon ka soo hadlayo hooyadii u sheegay hooyay waan noolahay meeshaasan ku xiranahay xabsi baan ku jiraay tol hadii la yahay nafsadeeda hal badbaado laga sidaayo abi iyo hooyadii Soomaaliyeed wax ay qaban karaan male dawlad ma haystaan system dawladeed ama cid dhaqaale siisa malaha meel ay u cawdaanaya safaarad malaha tolkii reeray haday tagaana hungurigii ay cunayeen ba tolkii qabiilkii uu siin waayay macadallahi wiil xabsi ku jira very good hooyada marka waxyaabaha anagu duqbulo ku taageeraan ku sheegay systemka dawladda hooyada oo wiilkeedii uu nool yahay oo wiilka uu san khalad kale iyo dambi kale iyo dhac iyo kufsi soo geysan oo la hooyadayban ilinta ka tiraya calooshadana buuxinaya gaajadan habeen dambe sawsa iyo xabsi dalaqir hooyadii marka ka samirtay wiilkeedii oo nool ogana samirtay $100 oga samirtay dhageys $100 oo lacag inuu damiin laga rabay oga samirtay wiyaan khayra iyo farmaajo markay soo daayeen waa markan qalad iyo saxba aniga taageeray way dhageys yes dad badan baa waxay dhan duqbulow in laan bad dawladda taageerta بقرساي خلط يصحبات كو تاغيرتا واد غرب تاغنت ياس مركان arkay hooyada oo oyis oo sujuudis you don't know because of Ahmed oo ku cad you don't know because of Tugi Barhira la ku cad marka arka hooyo Soomaaliyeed you know why waxa ku kalifi kara hooyadan oo weyn inay orday dhulka subiso ama madax dhulka dhigto waxa ku kalifi kara because of wax ay unexpected ahayn oo aanan la dhici karin iyo khayri farmaajo system koodi markuu yimaaday iyo keenan that's why anigu support garay kuma support gareen qabiil kuma support gareen reer kuma support gareen cid kuma support gareen nin jeclaysi kuma support gareen farmaajo saaxiib lahay kuma support gareen khayr saaxiib lahay waxaan ku support garay waxa weeye hooyada wiilkeedii mar labaad u dhashay dhageys hooyada Soomaaliyeed ee wiilkeedii mar labaad u dhashay yaa ku support garay marka taas yaad marka waxaan rabaa inay dadku kala fahmaan waa run dawlad walba markay sii dhici rabto oo waqtigeedu uu gabaabsiyahay waxyaabahan la yaabay dawlad walba oo Soomaaliya soo marto oo muddo soo shaqeyso oo wanaag iyo fiicnaan soo qabato markay sii dhacayso ee waqtigeedu uu gabaabsiyahay ee gabalkeedu sii dhacayo ama ma garanaysaa waqtigeedu u dhamaaday yes la taliyaashu qabiil bay u bataan dadka howlwanada hoosha wado qabiil bay u bataan baashu qabiil bay isu rogtaa laakiin ilaahay waxaan ka baryaa inuu dawladdan ilaahay ka badbaadiyo okay waxyaabaha saa u leeyahay inuu sameeyo waxa weeye ciidan baa waxa lagu aruurinayaa bu'aala meel yiraahdo kismaayaa laga baxayaa
دوبلي بيكب حيان قربهري بيكب حيان ويلون سوماليا دوي اوكي waxaan rabaa inay dawladda Soomaaliya si fiican u fahanto shacabka Soomaaliyeedna ay si fiican u fahmaan ummadda Soomaaliyeedna inay si fiican u fahanto dawladda Soomaaliyeedna inay si fiican u fahanto waxa laga baxayaa magaalada Kismaayo waxa laga baxayaa magaalada Garbahari waxa laga baxayaa magaalada Luuq waxa laga soo baxayaa magaalada Magaraysa Muqdisho soldier ma aha dadka soo baxay waa dad civilian oo recruitment hadda lagu sameeyo oo in la recruit gareeyo la rabo oo la rabo in hadda uniform loo xiro tababarkii yaraaya hoob jac inta la siiyo si maleeshiyade oo magaraysaay guerrilla war in magaraysaay lagu aruuriyo bu'aaliye areadan gada lagu aruuriyo kadibna ay dagaal ka galaan jubbada hoose ee la xoreeyo bu'aale iyo magaraysaay jamaami dhulka al-shabaab laga xoreeyo yaas waa soo dhaweynayaan in la helo muwaadiniin saxe oo dhiigoodii nafsadooda u horo anagu duqbulo soo dhaweena waana taageersanaa waana garab taagana waana sii taageeri doonaa laakiin mid baanan ogolaanin in dawladdii aniga aan taageerayay iyo systemkii anoo duqbulo aan taageerayay ee aan garab taagnaa ee aan waligayba duulinayaa ma aan lahaa wax wanaagsan bay qabanayaan in last minute lagu fashiliyo wax aanan magaraysaa faa'iido badan keenin halka ay dhig marka tusaale yar baydin tuseen axmedow anigu waan mucaarada ma taageersanin sababtoo aan u taageersaneen waxa weeye deegaanada aniga aan ka soo jeedo wax xuquuq ay ku leeyihiin Jubbaland ma jirto deegaanadii Jubbaland ee lagu heshiiyay dastuurka Jubbaland lagu qoray ee anagoo reer Jubbaland aan ansixinay badidooda gacanta ka maqeen waxa soo dhan waxa keenay waxa weeye tabta hadda wax u socdaan oo kale tay hadda ka hor u dhacay maxaa dhacay axmedow waagi uu jabhadka ahaa ee raas Kamboni uu joogay nobody knows al-shabaab iyo al-xisb islaami al-qushush iyo balaayo isaga jira maxaa dhacay the same thing dawladdii waaga jirtay Sheekh Shariif Sheekh Axmed wasiirkeedii gaashaandhigga the same thing what's going on right now waxaan wixii waaga socday ya hadda socdo wasiirka gaashaandhigga waxa ninkii la oranayay muxuu ahaayeen Allah musta'an professor Gandhi waa meel dhaqaalaha ka helay ma garan karo cidda u dirsatayna ma garan karo inkastoo Kenya hawsha dabada ka wad aad wuxuu sameeyay qaxootiga dhalinyar laga aruuriyay xagga jubbada hoose jubbooyinka ka yimaadeen Gaarisa ka yimaadeen waxa la soo keenay Kenya meel ka mid waa maleeshiyad waa qof walba waxa loo ballan qaaday lagu yiri 500 200 300 ba helaysa tababar sogol maxaa la doonayaa waxa la rabaa in laga xoreeyo Kismaayo al-shabaab laga xoreeyo dhageyso Kismaayo in al-shabaab laga xoreeyo ayaan doonaynaa aadiyad wiilashii iyo dadkii moraalka hayay ee al-shabaab nacay ee rabe Kismaayo in laga qaado qabiil bay lahayn waxa la isugu keenay Kenya la isugu keenay very good waa Kenya ciidamada sirdoonka tababaray ama militariga tababaray finaanadii yari waxba loo xiriyo uniform loo xir qoriyaa loo dhiibay dagaal balagelin all those people barta la isugu keenay 300 400 $100 baa loo ballan qaaday inay magaranaysaa dagaalka galaan laga xoreeyo jubbooyinka al-shabaab laga xoreeyo dawladda loo xoreeyo dawladda Soomaaliya ee qabsan doonta loo sheegay waxa hawsha wadana wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya professor Gandhi waa taariikhdan kama basho ragii sidii baa lagu aruuriyay waa lagu tababaray hub baa loo dhiibay ciidan baa loo dhiibay waxa weeye jabhad bay noqdeen waxay ka garab dagaalamayeen ciidamadii ka garab dagaalamayeen waxa dhacay marka xisbul islaam garabkii soo gaay jabhadda raas Kamboni ya ciidankii Soomaaliyeed ee marka la soo keenay ee dhaqaalaha loo ballan qaaday ee la yiri Kismaayo laga xoreeyay al-shabaab oo dawladda loo xoreeyay nin walba ciidanka qaranka Soomaaliyeed inuu yahay isu maleynay ya Axmed Madoobe oo raas Kamboni jabhadda wato ya meelaha ka yimid qabiil buu ku soo galay reer buu ku soo jabhadda waa la yiri leader weeye TV-da laga daawaday hawsha lagu waday si u socodka Kismaayo la qabsaday okay هوشي مركب ماشي قبستي أحمدو كسمايو قبتي مدحوينو كنقض كسمايو كميل قاري وحالس لو تقدونا مادام واحد لقو حرية دولة مقرس هوشي ما دوتو دولة دي ما دلتي واحد بدن باي ماضي هوش النوع عصبي مريسي سيدا سيهد بالله أحمدو مركو ماشي تاقي رايد نوم حياتا مرك أحمدو حكولي ديق با أصوداتي ميد بان وطا داوع بان وطا هوش واسيداس قريبا كو إمد كايدا وشو عبي حباد بان كو إمد ياي ما كرو sidoo ku tagay marka Axmedow wuxuu ku tagay the same shit story right now is going on buala waxa la leeyahay Kismaayo ka imaada culiyahan maraxaano imaada heblayo imaada idan bala runay the same story same Axmed blue breeder ka Axmedow Kismaayo ku qabsaday ee uu maanta ugu hortaagay asiga hor leexilay the same thing is going on same shit is going on
ciidana dhoobley laga soo baxo ragga wax leey soo baxa baawur soo qaar buulka baalka meel bal isugu geynaya dacwa hoob jac dawal waxa laga dhaadhici wadari baa tahay dhagiis dawal waxa laga dhaadhici wadari baa tahay waxa jubbada hoosaa laga xoreynaya al-shabaab waxa weeye ciidanka qaranka xoogga dalka Soomaaliyeed baa kamid tahay magaraysa qoriga degta saaro waxa la xoreynaya baalka muwaadinka Soomaaliyeed yes dalkan buu dagaalamaya muwaadinka Soomaaliyeed inuu askariga nash SN inuu kan mid noqdo rabo muwaadinka Soomaaliyeed ee dhiman doono iyo ka dhaawac kan hadda la runay dawana inay ka xoreeyaan al-shabaab oo dawladda Soomaaliya ma sha laakiin maxaa jir marka khiyaana jirta who is the leader marka ciidanka la runay barhiiraale intuu qaado wiilasha hadda la aruurinay intuu bu'aala qabsado inuu yiraahdo dhiig iyo kaadiya meedi dhaawac wata waraa hoy meedi dhaawac ayaan anigu wataayo waa soo dagaalamay wiilal bayga dhintay dad bayga soo dhintay bu'aala fadhiya madaxweynaha Jubbaland baana bullshit I'm not going to accept hadduu madaxweynaha wada naftirkiisa gubataa nabadii nolol gubataa macaan haddii qabyaalada subadash anigu waxaan taageereen hooyooyinka ilinta dhiiga laga tirtirayo anigu waxaan taageeray waxa weey in institution kanu dhismo waxaan la qeyn waraa dawlad ka tirsan lacag laba sharing axmedow meedi dhaawac ilaa hadii loo tagin oo kismaayo joogo deen hadda wiilal culiyahane maraxaane nin walbo isbedel doonki soo carara imaada 200 baa la bixin uniform fake baa la sixriya barhiiraale askartiisa kamid noqonaysa waa kaartadii the only no way anigu waxaan soo dhaweynayaa in pressure siyaasadeed u yimaado aran wana wiil dambe intuu dhinto magaalada dambe Soomaaliya qabso Jubbaland hadda warlord kale loo dhiibo waxaan soo dhaweynaya wax aan taageersanahay oo wallahi oo billahi oo tallahi aan soo dhaweynayman haday dawladda Soomaaliya budget ku bixiso oo lacag ku bixiso ay tiraado bu'aala la qabanaya barhiiraana ciidanka liid gareenayo oo hadhow dhih rabo media dhaawac baan wataa magaraysa hawsha waa sidan hawsha waa noocan no فشل ويا سرتس وحبك بجرا عد تاجيري سنة ملا تاجير من أقولان من ويل دمبو الصوماليات إنه وولو دنت تاجير من الدولة الصوماليات أو دمبتو وولو دمبيره هويش سامتين وزير كريمة وزير كجاشاندي كصومالي بس بروفيسور جاندي أحمد أبير جهادي شيء وسوه دولة دي مكوخبص ياش ريالة تيجا لقى كبر يا بيل لقى بشكي دولة دمية يا بنباني يا قياري يا وحن جريم بو أحمد مدوكو قبصي كوس وزير قاشانيكا يا بجت كي قاشانيكا الصومالية يا اللي قد وذا يا دولة دكية وذا هذه هذا أنا بريهير عليه وراه هاي ورياضة ورانا والصومالية يعلموا ودماننا قيانة إيا كارتدا ما نبقى قبيل با وراه وحاس كبح هذه وحاس عنايو إيه وحير قلمة نك هذا يدقيسنايو isbedel doon ku jiro waraa ciidanka barhiira la taa listen to me carefully si wanaagsan oo qurux badan dhigayso hadaa ka bixiso xamra joogtid oo lagu arurayo oo dawlad lagu sheegay is line I don't know budget kan meel kiimad maqan dhowrka milyan la wado meel kiimid listen to me carefully matid ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed matid ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lambar balsi toobar 8 bilood 9 bilood bay soo qaataan no way you not go قر صفي عقر أنا لما كذا ميل بكسينا نادية قال نظام لوج فيري نظام لو مراجع عيدا كحوك الدولة الصومالية إن تكمل نقطة وأنا اسكورتد وأنا هاي سكول هستيد وأنا تريني ناديد وأنا مقرن البروجيس قريو وأنا مواد الصومالية نو إذا بدنا هذا لا أرورنايو متيد عيدا كحوك الدولة الصومالية متيد عيدا كحوك الدولة الصومالية من غريشت وعيدا للربو إلا أروريو الله سمية برهيري على فشل باتنا معنا من التاجرينه من السودوينه وولو دمبتولو انت اللي سكوب بيو هوب لو سوديبو رصاص لو سوديبو قرش لو سوديبو وما الصوماليات أي بربريان من السودوينه هذا دولة الصومالية كم مدح بنان تارنتنا يدا وارنتنا يتهاي الرمال رك سياسيين وكلا يهولا كلا أيوتان دولة الصومالية هكورتك تارنتنا يدا دولة دا تاجرو مدن محمد عبد الله فرماج مدحوينها كيهاي الرئيس الوزراء حسن علي قير ورئيس الوزراء كيه والله وبالله والله هدا إذيك وطان you are enemy number 1 in Somalia حقيقة دبته enemy number 1 أو Somalia أنا دجال سكية دبوا عليان أو Somalia ربنا هوب كشكون يبان إذيك ويا قيالك ولا سكلتك
والله أنا بينها فرماجو يا خير هدي لعكتن يا هوبكن يا عيدن كلا أرورنايو برهيرة الربيع اللون دي أيقوي وذان وأيقوي مقرر ساقة مقابلنا يان you guys يا warlord باتي warlord وحاتين ومضينا سكور كنا نسكو دي الربع أحمد مذوبي برهيرة له إلا يسكوه بيو لا يسكو دكم داكم لا يسكديكو ضد سود ديارناتين هدانا الدولة الصومالية كور هينين هدينا الدولة الصومالية أرنتن أيسن كور هينين هدينا أرنتن الدولة الصومالية أيسن كورين كل الدقبلو ووجادي حدنا هاوجاتو هدي جبضه وصل الحرين أيو وإنه عيدا كحوق الدلك الصومالية مقرر سايد درجوين كل الدول النظام كله النظام كدولة كل سوينا حريان ويان shit tell the truth ويلا لا صبح الدولة كصبح قرب هاري كصبح كان كصبح أنت كصبح أنت كصبح أنت كصوتك أو نوح مذوبان سجد القاذوين وميد يدافع ودافع ميد يدافع ما وتا أن مقرر ساي هبين يمال السلطان مرخاتك هذا الصومالي وحن قيالي ببرتي بين ببرتي بلش دولة الصومالية هدي سنكور هينين وارنتن أي مقرر ساي أي سنكور هينين مربنا إن جبهات كلتو يا وولد كلتو ونقوه بيستو مدورين دولة الصومالي وين كدكتوناتهم هدي أي دولة الصومالي أرنتن أي وضو أو هوست كودو والله وبالله والله من كل أرتاي تقبلوا إنه سنبد إنه الدولة الدنبية الصومالي الدنبي وستاجرين والله أنا ولي يدهم الصومالي جمرة وحنكون بيرا يدات كده صومالي ويكلتك والله أنا بينه إحنا أمين الدورة واحد ده الصومالي إنك لا تكتور ضمير كذا دت يعني شيء توصل أمين الدورة أنا واحد تاجري والنظام أنا واحد تاجري والصومالي أنا واحد تاجري ومدح ذي ونكسره الضاعة أنا واحد تاجري وعلى كين وقول استوي أنا قم تاجري خيانة قبيل أنا قم تاجري إنجب هذا عصب الصبية أنا قم تاجري عشورته هيوين كالصوماليات قاعد جيسان اللي قصوا قادو إن وول لوري أو دجال أوجي هوست لوجو بيو بجد لوجو ديبو برنامج تاجري أنا تقبله وكوري مانا يا رنت رمد اللوشي حقيقة اللي قد لا إن شاء الله وحكوا سنة يا مدح الدولة الفدرال كسبان هدي أرنتن اللسعون هدي هذا أرنتن اللسعوتان ندي توجاتيد خائمين توجا ومضى الصوماليات باب إنيسو إني إسكود دلان ربان نواتين رنت الشيء والله إذا كقبل هدينا الدولة دي إذا قروح بدن النبضي نقول هديسن أوجين أو يسنور كين أرنتن رجال لقصوا أرورنا يلا سكين يا شاتيدي مع وست وطو إلا الرباب بريهير على إن لو ديبو إلا الربين أحمد مذوبل لو جهرجي ستوب وشكل شريف في ستوب برتا لو يستجي ستوب برتا إذا لو يستجي because مرة من موادن دمبئو الصوماليات إنه قبلوا أنت دوري من موادن والبئو الصومالية موادن دمبئو الصوماليات إنه رارو أنت مرة صومالية براروجا كرة كعة كرة استاجة من كين قليه طبعا حركة سوقري برهيرة له ورش ياس برهيرة له والدجال أوجا أحمد مذوب كل التوي I don't support him أنا am not supporting دولة أن تاجري إنه هو بديبتو إذا هو رورسو أن قرميسنين أن دولة إن أنت وديبت اللي ربوا على قبط وأريها الدولة السو استاجة ميديا دابع موتا ونصوت على لبي كذا ده نصعبي كوي no هدوم مدحوين محمد عبد الله فرماجة مغريو كونفرنسيada ميتينada meelaha dhan hawsha ka socoto ciidan ka la aruurinayo ee rabab waalna qabtaan ma noqon karaan ciidan maleeshiyaad oo beel ah ama dagaal ugu wato ma noqon karaan annagu haddaanu nahay muwaadiniinta Soomaaliyeed ma ku taageerino mana garab istaagayno mana support gareerino waxa aan taageerino waxa weeye ciidankanaga xoogga dalka Soomaaliyeed ee numberkooda barta ugu qoran yahay ee caalanka Soomaaliyeed barta ugu dhigan yahay ee training-kada iyo magaraysaay akhlaaqda iyo nidaam kale ee dawladda institutionka dastuurka Soomaaliya u hogaansamayo ee u fasaxay inay dhulkooda xoreystaan kuwa aan duqbiloon ku qasbana habeen iyo maalin garab istaago habeen iyo maalin inaan garab istaago biyaha iyo caanaha iyo cabitaanka iyo wax walba ku garab wadoon u geeyon dhaw ciidankayga xoogga dalka guuleysta qabta ka guuleysta al-shabaabna waan soo dhaweynaya laakiin farmaajiya khayrow wallahi oo billaah oo tallaah man barahiirale iyo ciidanka hadda la aruurinayo ee maleeshiyaadka ee magaraysaay la rabo sida Axmed Madoobe iyo Raas Kaambooni inay qabsaan ma taageerayno mana garab istaagayno mana soo dhaweynayno wax socon doonana maaha insha Allah dilaara ugu raacsantii baro maleynaya
sababta haddii barhiiraale hadda sida axmed madoobe ee wasiirkii gaashaandhigga ee professor gandi uu nagu hubeeyo jabhadda magac la baxaan oo bu'aale iyo jamaami iyo jubbada hoose xoreeyaan wuu fariisan war dawladda wuxuu dhihi nagala tag madaxweynaha kale imaan doono waxaan yaw war siyaasaddan fiiri sometimes is crazy daacad million daacad baa jir laakiin all politicians Soomaaliya noo imaada waa tuug khiyaano leh oo dana kale iyo howlo kale wato war axmed madoobe yaa kriid garay sheekh shariif dawladdiisa kriid garay haddu ku dagaalamaya fiiri haddu mucaarad ku yahay ku dagaalamaya hool ku wata hooyooyinna way gaajisay way ooreen soo barhiiraale hadda la kriid garay raba nabadii nolol wixii daacadii iyo hawshii aan ku jirnay iyo nabadii aan ku jirnay iyo fiilaanta aan ku jirnay iyo buunbuunintii iyo dawladnimadii iyo hawshii aan wadnay deen barhiiraale aan lagu kriid gareynaya hadduu farmaajo khayr farmaajo haduu wuxuu raayno hadda ku dagaalamo Sheekh Axmedow oo calaamad shaarka barhiiraale 7 sano 8 sano dambeeto madaxweynaha imaana farmaajo ku dagaalamo no way it's not that's waxaan anigu accept gareynay ma laakiin waxaan filayaa dawladdanada inaysan arrinta ka warhayn waxaan boqolkiiba rajo weyn aan qabaa oo aan ku kalsoonahay in dawladdeeda Soomaaliya aysan ka warhaynin kuna degdegi doonin waxa socdo iyo qabanqaabada iyo hawsha socota iyo waxaan hadda anigu aan dareemayo inaysan ka warhaynin badreemo waxaan jeclaan lahaa hadda hadday ka warhasho inay baaritaan ku samayso halkaasi missionkaasi shut down lagu sameeyo shut down inay xoreeyaan qaybta 43aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa inay jubbada hoose xoreeyaan jubbada dhexe xoreeyaan Jubbaland dhanna gacanta ku dhigaan dawladda Soomaaliya ay noo qabato doorasho xor iyo xalaale oo Axmed Madoobe geedanaar uu barta kaga baxay Axmed Madoobe uu geedanaar intuu barta kaga lugeeyo Jubbaland rag wax bartay aqoon-yahane oo magaranaysa aqoon-yahane ay xor si doorasho u galaan لكن ما accept gareenayo هذا محمد سياد برنامج sii dhacay la yiri oo ma joogna aniga laakiin taariikhda waayuu sii dhacay xukunkiisa sii dhamaanay si dadka oo dhan anaga hadda sidaan xoog wadaniinta uga mid ahayn dawladda u taageer markuu sii dhacay waxa waa general la isku taxamul jiro garaysa tii waxa way baan hadda dareemayaan oo taqbalo wallahi been ma joojiya hal joojiya وقرأسها مركو سياد برسيد عيه سيدان أبيه قرشدو جال سيادو سانو لهنا نقول له دبل دقيقة ليرو كعان كبرك يسال الله يا معلمي دولت دو يشيد عيسى أي خد كسي بحيسي يا حالي رعاود واقعي وقرأسها مالها نكيمه وأنا A B C D T G أنقرين والدرجة سياسة حتى كورنيل بالك اللي تعايقت كذا محا كورنيل حتى أنقرين واحد قربها وصارن أنا قرين قرأسها ديت مركا هدي هوشن سيدات هاي نوعين كل ما مسردي واحد آمسر هاي ما فرماجي خير سبيشال في مدحوني محمد الله فرماجو رضي الله عنه وانين وحبرتوي يقوياني أنا وحنا آمسر هاي داد كان هوشان وضو إني يهين داد قبيلة rabo inay magaraysaay Jubbaland olosho oo magaraysaay howlahaas oo dhan ay wado ana aaminsanahay dawladda Soomaaliya inaysan ka warheegin oo aniga hadda arrintan aan qarxiyay ana duqbulow inaan arrintan hadda qarxiyay oo dhaxda ku dhuftay oo aan magaraysaay blow up scandal weyn and blow up gareeyana aaminsanahay marka dawladdeeda barakaysan waxaan leeyahay ma sha Allah guuleysta waxa sameeysan sidii Axmed Madoobe iyo dhacay dalkan wax badan baan soo qabanay oo wanaagsan oo qurux badan baan soo qabanay wallahi inaan beenahayn hooyooyin baa inta ka soo tirnay hawadii Soomaaliya soo celinay nabadii nolol waxay ummadda Soomaaliyeed u qabatay heerka gaarsiisay dawladihii Soomaaliya ma gaarsiin ma rabna inay ku end up gareyso barhiiraale oo qori wato ma media dhaawac wata yaa kriid garay farmaajo kriid garay that was the funniest thing ever dhacay aadiyad wallahi been ma xaqiiqda dhabta dawladda intaasoo dhan aan wax soo wadnay oo soo hagaajinay oo intaasoo dhan dagaalameynay oo aan wanaag soo wadnay oo ficnaa soo wadnay what the hell is going on baddi gadaal baa loo dhigay this is funny this is we don't want to feel inaan isku xaarno ma rabna inaan isku xaarno waxaan rabaa dawladdeeda 4 sano inay si wanaagsan oo qurux badan what is going on baddi dib loo dhigay June 2019 بريرة قراه بينه ولا joke برضه listen to me careful نكل وين يبحيو قبيل كدون تهو إذا كبريرة لا you are not the Somali army national military كميت متد وحتى إذا كبريرة لا تدب آلي ملا الوحري كميت متد إذا كحوق الدل كالصوماليات كميت متد مجرد سياديات هذه وقت من
hadhowna waxaa weeye hawshu isbedel sida Axmed Madoobe dadkii uu ku shaqaystay Soomaalinimada rabay qaxootiga laga soo aruuriyay ee waagii la hubeeyay ee Professor Gandhi uu hubeeyay way dhintay kuwa kale oo Ethiopia la kariyo balaayo kala meesha fariistay Axmed Madoobe waa ka meedii dhaawac meedkiya waa masaakiinka adiga la weynaya diyaaradda lagu saaray ee sii socda ee la tabriyaadiya marka ka joog marka dawladda Soomaaliya advice yar basiinay intaas aan wax soo wadnay soo hardameynay oo dibka soo gal waxa aniga hadda arintan iga hadashiyon sida dhabta waliga khalid iyo sax dawladda waan taageersanay laakiin hadda ma taageersani qalad iyo sax damba ku taageeri ma hadii marba barhiira al ciidan loo dhiibayo oo la isku hubo anigu wax yar baan u fahmay wax yar baan idin sheegay dhageyst سير بوفا مركي بدي مركي هذا الدولة الصومالي من محمد عبد الله فرماجو وحوس لها بنو بدك كقولي سندونتا وحاوي ان وتقولي سندونتا ما قريسه ما شاء الله مركا ان شاء الله الدولة ونقولي سرينا وناقه هدان قبلنا وحاوي ونقولي سرنا بدي دي بالله ديق ددك وكعسين برهير علي عيدا بالله ددك وكعسين انا جيبك كعس انا دقبلو أنا برهير على متاجر أنا never support برهير على أحمد أبو إلى جبل النرش هذا كسر نقام support قرنه صابت والله بدو وحنوجا هنا عرور بدن أجون تميين وحنوجا هنا ضد بدن دلين هذا نيكلا سؤال ذا كانت إلههم من مدحونا شو قبيل لغدان مدحونا محمد عبد الله فرماجو اسكرار مرة نين اللي قرنين وعيدك أبالك هدي حلا وحبا قرصبل برهير على نقنا بقرص قاركون هذا حسوقنا كله أحمد أبو وين برهير على قرقية وعيدا بدل الله سمية ودغالها الدولة اللي لقى فايديستا وهو ساق سعود أحمد أبو إن شاء الله قصر محا أحمد أبو كان اسمه دليان لكن ده كان نجس كده ماني غيرها النجس كده ماني إلها النجس كده ماني شعب كان نجس كده ماني بركوش هالشيء سعون ميس هذا ركوع ملانا يفرح سنة دقبلون نبضي نقول يمد يوم لنا معارض دولة كنا ذكوم النقل إن حق الشيء رد الشيء حقيقة كهذا وهو واجب because I'm social media activist أنا نضبله وحنا هاي social media activist بقرأ هذه دولة المركز وحيابها very dangerous كإنكستوني هذا أنا كوعدين كرين دولة الصومال إنه هوشان أي وضعته يسمى كوعدين كرين لكن وحاوي ووح سعودي هذا كوربا شيخ شريف لقمة عدين كرين بالله لكن دي حالات واحمد صوبته انتو أحمد مذوبة كريت جري أو أحمد مذوبة نقول سميه أو عيد نقول سميه والميديا داو صوت كسمايو كني ما أنت دجال بكوكرة يوم قرأت أسيب الفسور جاندي ويحن هالكني فريم مركب ما شاء الله أنت برهير على كان سببها قفك برهير على تاجر سنو قدك تجلس قرأت قدك قل إساس مقرسة أول مادية نك أحمد مذوبة تاجر سرو وولوري قبيل كنت تاجر سرو قد كقل إساس هذيك مقرسة عريس كشو مادية أنه ضل نبض بربنا ضل مقرسة أقويه هنا وصبحين بربنا ضل وحارمنا ومد الصوماليات كوحبرتي وحكنا قوني ربنا ضل وحارمنا ويلش النذي عرورتنا ذا وحبرتي إيه مدحوينيال كنا قوني بربنا ضل وحارمنا قبلها النجي هويين كنا أي نبض وقلنا ولان كلام بربنا مدوني إنه إن وولورد ضمبه وضل كده بوصلنا وولورد دمبه وقوري وطو وعيدا وطو ودمبه إن دلك الصومالي دب قصو نقضو ما دوني الناديات مركا لابد جار هورانا وانا مر لبادنا كعلا دولة الصومالية هدي يسن كورهينين هدي أيسن كورهينين عيدا كان لأرورينايو إلا الربا إن برهيرا للو ديبو إلا دمعسي هاي سيدي أحمد مذوبي أو كاليتو إنو بؤالة مقالة مدحة جبلان إنو كحرية الشباب أسنها الكافريستو لبسنو كميل قارو قاتو بغ سيديد سنو كل مدحوين ميشا كفرديو وهدو نوير هذا بؤالية جبلانية مقالة مدحة هذا ديك بانوسو عنو كاذي بانوسو عبو بميد بانوسو عبي هدادا للدونين وانا هادك كعراوين كتاجيري ماي فرماجو كتاجيري ماي خير كتاجيري ماي أحمدوبي من يلي نولو طبين وصو waxa kaliya rabno waxa weeyaan dawladda ku taageeray ku garab istaagay anoo taqbalo opinion ka kadlaya dad ba fara badan oo daawanayeen ay fikirka ay la qabaan una aaminsanaa waxaan rabaa ciidankayga xooga dalka Soomaaliyeed ee nidaamsan inay xoreeyaan bu'aale ciidankayga xooga dalka Soomaaliyeed inay jubbooyinka xoreeyaan in uu madaxweyne ka noqdo Jubbaland in aqoon-yahane qabiilku doonaha ka soo jeedo wax bartay oo magaranaysa nidaamkan daadajin karo ما دورينو وولو دمبه إن لصوه بيو وميل قبصة ما دورينو إن أحمد مذوبة وسيجو كسمايو ما دورين ناديات مركا إن شاء الله دولا سرتها سر قرصون بهيد هدي دتكين انت بدنا ذوقيديننا وذوقيدين أنا كل ترى شلون وقادر انت يده إن عيدا لأرورنايو برهيرا لو دي بالربو
jubbada dhexe uu aadi rabo oo bu'aala qabsado oo halka al-shabaab ka saaro oo halka dhulka dhan la xoreeyo axmed madoobena saas la iskaga horkeeno oo laba woolood oo axmed madoobena hubeysan yahay barhiiraalan oo hubeysan hawshu ay sida ahaato anigu ma doonayo mudanahayga madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo kulli waa lagu soo gaarsiin doonaa because maanta duqbulo waxa lagu dhihi iyo kheyra waxa la doona duqbulo maanta wuxuu ka hadlayay wax oo macquul galahayn because yes wuxuu ahaa ninkii gar iyo gardarraba dawladda taageeri jiray ninkii wuxuu ahaa mar walba radiyallahu anhu iyo xafidullah ku hijiray ninkii wuxuu ahaa nabadii nolol markii dhinaciisa laga soo maro dagaalka gal jiray duqbulo waa ninkii nabadii nolol loo dilay oo waliba loo bursaday oo magaraysa noloshiisa halis u gashay yes laakiin hadda in hooyooyin Soomaaliyeed kale halis u gasho oo dhintaan dooni meen haddii arrinta dhab noqoto ay soo baxdo banaanka timaado am number 1 mucaarad kheyri farmaajo noqonay waana xaqiiq dhab haddii ciidanka la aruuray bu'aala lagu sameeyo horjoogo looga dhigo ninka la yiraahdo barhiiraale oo barhiiraale qoriga loo dhiibo baasha loo dhiibo waxaan noqonayaa number 1 mucaarad wallahi billahi hooyooyinka Soomaaliyeed badbaadiyo waxaan noqonayaa number 1 kheyri farmaajo haddii ay ku dhaqaaqaan ay barhiiraale hubka u dhiibaan ciidanka loo dhiibo ka hor imaado ummadda Soomaaliyeedna xaqiiqda u sheeg waligayba xaqiiqda sheegay insha Allah dooni ma in hooyo dambo Soomaaliyeed dhimato dooni ma aabba dambo Soomaaliyeed dhinto waxaan doonayaa madaxweynahayga xafidullah mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan doonayaa ra'iisul wasaarahayga xafidullah xasan cali kheyre in si wanaagsan oo qurux badan ku dhamaato yeen raggan siyaasiyiinta la taliyaasha iyo odayaasha qabiilka yaanan la fashilinin oo aad iyo aad noola fashilinin oo aanan nalaga dhaadhicinin inaan woolood ciidan iyo hub u dhiibno dagaal la geliyo naceebeeyo aad iyo aad yeysan dhicin waana dawladda diidaa waana mas'uuliyiintu diidaan waa inaan iraahnaa dawladda Soomaaliya dhul walba al-shabaab ka maqan dawladda Soomaaliya xoreysanayso waana tiraadaan sababtoo haddaan ogolaano budget ku bixinna hadda inay maleeshiyaad noo xoreeyaan dhulka naga maqan hadhow dawladda Soomaaliya kula gorgortamayaan ayagiiba hadhow trade ku noqonayo dhibka hadda axmed madoobe naga haysto markhaatibaad ka tihiin dhibka hadda ahli sunna wal jamiica naga haysto markhaatibaad ka tihiin dhibabka meelo far badan oo Soomaali ka mid ah al-shabaab ama maleeshiyaad xoreeyeen markhaatibaad ka tihiin marka ma ogolaanayna jubbada hoose in hadarana barhiiraale iyo ciidan oo wato inay al-shabaab inta la dagaalamaan dawladda Soomaaliya uu ku noqdo mindi ku taag haddii ay dawladda Soomaaliya arrintaasi ay support garanayso aniga ma support garanay haddii dawladda Soomaaliya arrinta ka soo horjeedo oo diidan tahay oo banaanka taagata anagana banaanka taagnay dawladdanada waxaan rabaa insha Allah hadii la yiraahdo waa ka sii baxaya dawladdanada waxaan rabaa Soomaaliyeed waliba special nabadii nolol oo muddo 3 sano anigu garab taagnaa wax faa'iido kuma qabin anoo duqbulo waxaan u dagaalamay in cid walba uga soo horjeeday in ma walba runta uga hadlay waxay wax sax oo xaqiiqi qabanayeen hal shay oo been maalna kuma dar inay badanadii dagaal u galeen inay magaraysa hooyinka Soomaaliyeed carruurtooda soo daayeen in hawadii Soomaaliya soo noqotay in eelboorka aadan cadda international airport uu habeen shaqeeyo in deymihina lagu lahaa caalamka in lagu lahaa in lagu bahdiliyay in magaraysa maanta processkeeda ra'iisul wasaaraha uu wado insha Allah hadii la yiraahdo wuxuu joogaa DC oo inta doona uu hawsha ka wado ma sha Allah hadii cafinta ay socoto in karaamadii iyo sharaftii ummadda Soomaaliyeed ay lahayd ay dib u soo noqotay in magaraysa izigii iyo karaamadii aan adduunyada ku lahaan jirnay inay dib u soo noqotay in madaxweynaha naga radiyallahu anhu mudane maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka guuleystay dagaal 20 sano socday Eritrea Ethiopia inuu soo afjaro in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku guuleystay in East Africa uu nabadeeyo u dajiyo tusaale Djibouti Eritrea oo isoo fadhiyo ciidamadoodii inuu kala waxyaabaha soo dhan dawladdeeda waa wax xaqiiq oo sax qabato oo marnaba aan la xaqiri karin oo habeen iyo maalin ay u soo jeedo way aadiyad marka waxa soo dhaw ku taageersanahay waan ku sii taageeri doonaa insha Allah hadii la laakiin barhiiraale in la hubeeyo ciidan loo dhiibo oo noqoto ku taageero banaanka taagan waraadiyad baan salaamiya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh intaana ka bixin ra'iisul wasaaraha imaanaya DC ان شاء الله دلوقتي واحد دي سي اريا بقرصها واشنطن ان شاء الله رئيس الوزراء حسن على الغير سي وناكسن او شرف له او عز له ان اسو دوين ان شاء الله وحي ابديده وان كدب جيد دور ان شاء الله دولار هدي وجاليد الله كل ما وشر القبنايو وان ديسو شيء دوران ان شاء الله وحيد الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.